طبعا شركة مدلود شروحها loo baahnaa oo xilligiisa ku soo aaday dadka deegaankuna ay hada uga tashteen waxaad se moodaa hadda guddi horumarineeda ka soo baxay baa layidhi guddiga horumarintana oday 90 jir oo yidhi qoray ayaa cabaysana guddoomiye looga dhigay marka horumar iyo qoray marka horeyba kala fog yihiin waxaan rajaynayaa dadka kale ee ayaga aan qoraga u cabaysnayn ee beesha u dhashayo inay horumarka beesha ka shaqeeyaan ninkii hadda qora u cabaysan yahana asaga dawaanan hadda weli ceel qabee ciilkiisaasoon cidna kuma talaynin meeshuu la aadayo inuu la aado sidaasaan ku talin lahaa dabcan waxay ila tahay soomaalidu qoray iyo macnaha uu leeyahay iyo waxa lagu gaaro inay wada tijaabisay laakiin cid hadday u dhiman tahay anugu ma aaminsaneen hadda ninkaa odaga ani hadda u dhiman tahay in qora faa'iido leeyahay inay u dhiman tahay moodi ma ahayn laakiin waa nin ra'yigiis marka muduloodna waxaan leeyahay horumar iyo qora kala saara horumarkiina iyo danihiina isma galan qoray cidan qoray aaminsaneen u dhiibta ana ka shaqayso danaha mudulood cidda hadda caqdad iyo colaad qabtana ma aha inay magaca qabiilka ku gambato waa la soo tijaabiyey horaa loo soo arkay qabiil qarankii dhammaan lahayn aan ku baabeennay waxay la tahay marka inaan kala saarno horumar inaan ka fikirno iyo inaan qoryo cabaysano inaan isgelayn waa rajaynayaa marka in shirkaasi guusho uu ku dhammaaday horumar u bedelanto haddii alla idmo siyaasad shaqo kuma lahaynoo shir beeleedow ahaa sidaad ka arkaysana dee beelaha soomaaliyeed ama madaxda soomaalidu inta badan kelmad baa laga siiyey oo lagu sharfay macnaheedu ma aha marka beel dagaal qabto ama beel caraysan inay beeshu ahayd laakiin qof ra'yi waa qabi karayaa waa mahadsantihiin aragtidii saaka intaasay ku eg tahay ama ku hadlaya magaca cusub